dowladda hoose ee magaalada Hargeysa ayaa maanta qaaday olole ballaaran oo ku rareysay 28 qoys oo deganaa galbeedka madaxtooyada Soomaaliland gaar ahaan agagaarka wasaaradda maaliyadda dadkani oo loo rareeyay waqooyiga magaalada Hargeysa ahana deegaanka xeero waxaana ololahan hormuud ka ahaa xubnaha golaha deegaanka caasimadda Hargeysa oo ka kooyay maayir ku-xigeenka caasimadda Hargeysa Cabdicasiis Agaweyne asimaha qorsheynta dowladda hoose waxaana howlgalkan si wada jir ah kaga kaashaday xukuumadda dhexe iyo dowladda hoose caasimadda Hargeysa maayir ku-xigeenka caasimadda Hargeysa Cabdicasiis Maxamed Xaashi Cagaweyne ayaa ugu horreyn faahfaahin ka bixiyay dalkan 28 qoysaska ku rarayeen iyo meelaha ay dejiyeen waxaana uu yidhi 28 qoys baan rarnay waxaanu u sameynay oo arkaysaano shaqaalahaygii dowladda hoose u raraya shirkadooyinka annaga ugu yeernay annaga u qaadayna dhulkiina annaga siinayna waxaana nagu kalifaysa ballanqaadadii faraha badnaa ee aanu qaadnay waxa ka mid ahaa inaanu ka shaqayn doono bilicda caasimadda Hargeysa hadday tahay wadooyinka hadday tahay leerka hadday tahay qashinka iyo hadday tahay waxyaabaha kaleba inuu wada shaqaynta leenahay sida biyaha oo kaleba haddaba iyadoo bilicda aanu hagaajinayno goobtana ay tahay goob ku xigta madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland dadkii maanaan baabiin maanaan ka burburin waanu qaadnay waxaananu siinay dhulkii alla xeedho bartibaanay imika dadkii qoysasku dambeeyay waa taa la siirarayo kuwana qurana maaha waxaanu qaadi doonaa dadyow kale oo sida kuwii neeris iskuulka kale markayagana waan qaadaynaa waxa iyaguna sidoo kale howlgalkani ka hadlay xildhibaan Axmed Daahir xildhibaan Cabdilaahi Aw Aadan iyo agaasimaha qorsheynta ee dowladda hoose magaalada Hargeysa Cabdilaahi Ubax oo qayb weyn ka ahaa qorshahani lagu raystay 20 qoys waxayna ku dheeraadeen qaabka u ran dadweynahani iyo sidii u dejiyeen waqooyiga magaalada Hargeysa iyagoo faahfaahinayana waxay yiraahdeen wada galayna waa galbeedka madaxtooyada way taw dhaxaysa madaxtooyada iyo wasaaradda maaliyadda halkaasi oo ay deganayeen dad fara badan oo shacab ah oo muddo badan ku noolaa saaka howlgal lahaada ay ka bilowday dowladda hoose ee Hargeysa iyadoo goobta ay tahay goob ka tirsan madaxtooyada soonaheediya imikana u gudbaysa ama laga dhigayo dhulkii madaxtooyada ayaa waxaan ka rarnay ilaa dad gaaraya ilaa 28 qoys oo ku noolaa halkan kuwaasi oo aynu dejinay goob ka mid ah magaalada waqooyigeeda xeero oo aynu ku deegaamaynay dhul aynu dejinay oo dowladdu ay leedahay la siiyey gabagabadiina waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay dadweynahan isaaka la rarayay iyagoo u mahadnaqay dowladda dhexe iyo dowladda hoose oo sheegeen in ay si wanaagsan u rareen waxaana hadalladoodii ka mid ahaa horta ilaahay marka hore ilaahay baan mahad celinaya cimriga nagu sumay aan ku guurnay aan ku deganay mar labaadkana madaxda kale ee sida fiican oo rartay ee bilaadimada aan dil lahayn ee qal lahayn ee qaylo lahayn yaan u mahadnaqaynaa aniga magacayga la yiraahdo Saan Maxamed Ali deganaan meesha laga reeyahay deganaan muddo 20 sano buuraa horta way ilaahay mahadi mar haddii meeshii ay dowladdu u baahatay weliba madaxtooyadu u baahatay madaxtooyadu weeyeen ana amarkii waanu qaadanay sidii ay ahayd baan u fulinay iyadoon ciidan iyo xornimo loo keenay shaqadayga xay tolo buurinay oon furano dhiganay horta marka hore Soomaaliya ku maatay